sidaa daraaddeed Somaliland waxay ku noolaatay mudaharaadaan waxay ku noolaatay dhibaato la'aan waxay ku noolaatay wax walba oo Somaliland ka jiray in la isku tanaasul baa laga doonayaa ummadda Somaliland sharaf baa laga doonayaa iyo sidii ahaan jirtay nimcada iyo wanaagga waxaynu ku haysanaa inuu geeska Afrika uga muuqanay aynu dimuqraadiyadda xalaasha ugu haysanaa in Afrika ba lagu hayn waad arkaysan doorado shirarkii ugu waaweynaa adduunka ayaa ka dhacay Mansoor sababta ugu dhacayaan waxa weeye waa ammaanka weeye laakiin maanta oo kale marka la inala hadlo ee la ogaado waxa maanta sharciyeeni ka jaaga cid adduunka inoo soo jeedsanaysa ma jirto marka si ay waxaynu leenahay aynu goor walba u helo ammaan baynu mudanahay oo ammaanteenu mudanahay waxa weeyaan caalamkii bayna ammaanay waa la arkayaa inaynu dadaalayno horaynu u soconnaa dimuqraadiyad baynu dhisaynaa asxaab iyo ururo is haya asxaabtii ururaduna distoor baa u dhaxeeya distoorka marka la raacana saasay ku dhamaanaysaa umurtu marka horaynu u soconaynaa dib uma noqonayno ummadda Somaliland meel sharafta leh meel ay joogan baan salaamayaa waxaan leeyahay guulaysta nabadiina ilaashado wassalaamu calaykum